ماما مريم واختيارا دنبدا كلين maxay noogu dambeeyay caawa waxaan rabaa maadaama aan islaam weyn ahay waayadii qarniyada ahayd oo aan gabadha yartoo teenage-ka awaagaan ahaan jiray heesaskayga jacaylka xasuus caawa inaan dad badan inaan wax soo xasuusiyaan rabaa marka ila xasuusta waa siday tahay maama maryan aad iyo aad dad mahadsantahay laakiin wata kelmadan maamo oo inku waqtiyadan dambe dhalinyaro ah mid kulleeg mid kastaba aad ugu yeedhin maxaad isticmaashaa maama maba garanaya hadda markaan anigu aan masraxa saarnahay keliyaan xasuustaa waa tee xasuusi waatee maamo sayid ogyahayba maama ku tidhahdaa haa xataa maama maryan mustaqbal caan ku noqotay marka waxay bilaabantayba in maryan mustaqbal kale leey aan la kala reebin maama maryan waxaan kuu sheego meeshaan ingiriiska abalaaya ka dhacday waxaa la ugaartaa habraha 70 jirka ah iyo 80 jirka ah marka ugaarashadiiba wiilashii yaryaraaba habrihii waxay leeyihiin abaaye oo abaaye waxa weeye khasnada loo soo socdaa marka weyn iyo yarba si aan bahun guriba u dhicin waaba maamaaba waa igu soo dhicin weeye waa igu soo dhicin هذه شكل بعد هذه هاي قصور دعم ويا مريم اختيارا دنبك لي تبغون بيصورون يا مريم حاول سبي صوصات محاكم إذا هسا اختيارا دنبك أنا والله هسا بدن وهذا عن صوص سارع مثل لكن أنا هذا وحوي عمري جوه وقفك ومعناها جاري كروا لحدن كيبان كتيرة النبي يجي صلوات الله عليه لحدن كل إنتانو ملايين يا مرك هذا وحوي هساسكينا بالغياب لا صعط أو ضدك يراي ولا أنت هساس ميسن لاين باللقاء هساسك ضدك وين أبى الكتيرة مرك وحن سلي هذا بعاو وحن كيمد محمد كرامة يوتيوب هسا بدن marka waxaan rabaa intaanan dhiman inaan horta bal wixii ilaa ma afriitum jirkayga aan soo qaadi jiray intaan la bilqayso horta inaan ka wada gaarsiiyo hadda caawinta meeshaan ka imid si badan baan soo duubay marka kuwii baan ku noqonayaa kuwii un waagii dhalinyarta ciyaalka yaryarka teenage-ka alaabtiisii baan hadda dabada u qabanaya kadib anoo weliba aan la tegi karin dee meelaha muraayadaha anoo la tegi karin telefishinada ilaan alaab gabar yar bay ahayd taas laakiin dhegta un halaga dhegaystaan leeyahay almeeno ha sheekadaasaan wadaa dee kuwaasaa iga fara badan laakiin waxaan ka baqooyaaba baliliqaan ka baqooyaa marka waxaan leeyahay intaanan dhiman bal horta wareete isdhaafi baan leeyahay markaa isdhaafiyana inaa iskaga haraaba dhici ka dhafankoo dhanba ilaa wiilkaygiba hadda heesiyood aragteene maanaa fanba ku jiri kara ninkii 1 2 3 ilaa igu soo baxay waaba samrayba heesaska aad iyo aad maxaa u kala jeclaan adiguba heesaska adoo aan heesinin midii oo macnaha adiga sheekadaada iyo historygaaga ka sheekeynaysa soo heesaska habeenkaasoo dhan kuma soo jeedid oo kuma soo celcelisid sidaasaanu nahay annakuna heestii adiga historygeeda kugu saabsan tahay waad ka jeceshahay maya waa ka qaban karaayo inta ka qabtaan weliba dhegaha aan bisbaas ka keenaya marka hadda waaye shilima hodan baa joogaya ha wallahi iyo gaalkacyo iyo adduun oo dhan iyo muuqanta dhulkaas dhinacna mudug bay ku yaalaan dhinacna waxay ku yaalaan magaaladii xamare xamar anigu waaba ku koray 6 jirkaygii ilaa ma hadeer ma sheekooyinkaas Soomaali weyn waa ku kala maseertay iga daaw ina leeyahay xanaaqan ka baqayay dee dhul aanan tegino ilaa ma aan soo wada kulli aan soo wada maro hadda ira kuwaas aan tagiyo kuwaas kuwii kale xanaaqay iga daa waa baashaalay dhaay mar waxaad inoogu celisaa waxay xasuustaa maraad ka sheekaysa sheekadintaan waan aad u jecelahayo muqdisho markaad tagtay maxaakiimtu ay haysteen boqol telefishin baan ka sheegay ma wadayna hadda taas habaryada waan jeclaan lahaa hadda Maryam ma naan maqalay dee waad maqashay nimco boqol jeer baad wallahi maqashay tiyaatarkii baan tegay isagoo ood saaran tahay deena xijaabatuuna tirish fanki baan ka baxay anoo xijaaban baan tegay bayaa la siraya anoo indhaha neejahan tegay meesha oo saas ah markaas baan tiyaatarka la geeyay tiyaatarkii baa la geeyay markii la geeyay ood baa waa bariyo dhan baa la jibshay ood baa saarneed markaasaan hortiisa galgashaan oo tiyaatar I'm sorry tiyaatar masaan baa ku dambeysay nimankii wadaadada ah marka waxay haystaan geed yar oo caagad oo hisaas kugu leeyihiin markaasaa la yiri Maryan
markaas ano oy aan kor fiirshay mas wadaadadii baa ay kor taagan isa yidhaaheen waxaad noo sheegtaa haddaad soo noqotaan maxaad ka damacsantahin tiyaatarkan waa arkay inay ii dhammaato xabad lay raacinaya haddaan wax kala sheego markaasaan oohintii ku laabtay markaan soo noqono tiyaatarka waxaan jecelnaha inaan ilmaha yararka xadiiska iyo qur-aanka ku barno iyagii baa qoslay intii wax kala ilaa waxaad leedahay heesahaas dabcan gaarka ku ah mid ka mid ah ku wada raaxaysana wallaahi hadda midii ugu dhibta badnayd baan qaadaya oo jacaylkao dhan baa lagu cirib gooya aan dhahay dadkiibuu dhibaya kaas aad waa siday tahay kaasaan hadda bal kusoo gunaanadaya ilaahay maaragtay wixii annaga naga babaaba-ayo ka gabownay idinka ilaahay idinka kaalmeeyo ulli madaca ku yee adduunkee caafimaadka baadhay cudurrada la dabagoyin basuukaha ha lagu daro qaxootiga ha lagu daro bebeeyaha ha lagu daro waa waagii annaku waddankayga aanu joogi jirna nibcama markhaati bay caawo iiga tahay beenlow baa layidhi nin dhintay iyo nin dheer buu markhaati gashadaay dayuurad baa inta nala ku qaada baan adduunyada meel walba soo mushaaxi jirnay markaas baa annagoo wadana baasaboorro gaduudano service baasaboro ingiriiskaana aan joogno anigoo dawladdu isoo dirtay baan saas miiska ugu saari jiray markaasaa layga kala carari jiro la kala yaaci jiray dukaan yar baan waxaan ka furtay meel sood hool la yidhaaho oo aad u dhaxan badan oo weliba magaaladao dhan bay ugu dhaxan badan tahay meeshaas markaasaan banaanka anoo istaagan oo waxaan arkay ay qaboobana tahay oo aan keliyihi saas ka leeyahan arkay dhag 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 markaasaan waxaan soo xasuustay waxaa ahaan jiray iyo waxa aan maanta ita marka kan ahay meeshaas oo qof walba xataa intuu igu soo maro uu iga heli karo can I take one picture bay ciyaalka yar hortigin ay jaaygay markaas yes of course saasaan ira maalin oo dhan ciyaalkaas ay yimaado ay masawirtaan marka gabay baan markaas tiriyey waxaan iri waabaan qaran ahaan jiray baan iri qaaradaha dunida oo dhan baan dayuuradu qaadan jiray fanaan qurux laanaha qaxootaan ay hadeer qashinka aniga ka daran gaaladu way quursataa qabowga ay igu daran qoobabka baraf baa ay jaray kaliyahan ka qarqarahaya haddaan dalkii qaban lahaa hawadii qaaliga ahayd haddaan soo qaadan lahaa haddaan qorraxaysan lahaa qiyaamihii baa ka dhacay waayeelkaa lagu qashaa qoortaa laga goynaya kurtiin qalad baatiin oo qurbadaad maatadii wadheene qorshe unu sameeya dumarka intaa qayla dhaaminaya barkood qaadeen baraalis kuwana sokor ciil la qaadeen xabiska ubadkeenna quban iyadoon qofna ugu tegaynin qaracan ay ugu dhammaatay meeshay ku qufulan yihiin baraan qorshihii hor dhigay barre maxamed fiido waan denmark ugu tegay ilaa anuu gabyaamiyey gabaga xir baan idhi waa xiri waayey markaasaan waxaa idhi baraan qorshihii hor dhigay qudhiiba wuxuu i yidhi anigu qashinkaan guraay maxaan kuu qaban karaa gabadii markaan xir iri baa idhi barrow xir markaasuu yidhi maxaan xiray anigu qashinkaan guraay maxaan kuu qaban karaa buu tiibaan ku xiray dee baraan qorshihii hor dhigay qudhiiba wuxuu i yidhi anigu qashinkaan guraay maxaan kuu qaban karaa marka qofku waxa waaye wuxuu qaran yahay markii uu dawlad leeyahay markuu adduunyada dawladdiisa iyo baasaboorkiisa ku dhoofayo oo meel walbaba lagu soo dhaweynayo uu qaran yahay dee marka laakiin markuu waxba qaxooti markaan wadanahay qof kasta qaxootiga ku arkaya ilmahayga dariiqa qofkay ku arkaan Soomaali ma tahay waa laga carari jiray inta la isdildili jiray kuwii weeye ayaan dhaw dadka liinaya la dhigi jiray ilmahayga waa laga carari jiray ama markii caatada ahaayeen abaarihii markii la soo saaray wixii lagu sheegay iskoolka ay dhigan waayeen xataa ilmihii kuwii gaajada ahaa weeyaa la leeyahay aan telefishinka habeen hor ka fiirsanaynin iyagoo feerahoodu muuqdaan marka waxa weeye dhibaataan lagu wada dhacday ilaahay ha naga badbaadsho wallaahi billaahi waxa weeye anoo jawaan anoo dharku igu jira albaabkii ka soo baxay ka waran markaasaan awoodi waay masawiradaydii aan kusoo sameeyey China anoo yaroo baby ah oo darbiyada ku dhigay inaan soo fuqsay awoodi kari waay oo culays ka baqayo aan jawaan alaabtii kusoo gurto kuma garanayaan adigoo Ethiopia dhex marayo kab raadinaya kabteeda iyo noloshaad ku nool adduunka caynkaas marina Ethiopia marka aan qabow baa jiray maxaa la yiraahdaa Ethiopia dhexdeeda meel aan naga joogna markaasaan intaan dariiqa socday maya 15 kun baa dacis ku ahaa 15 kun ilmihii baabuur baan raacina waa ka deganayna kabiiba qaar ka lumayaan markaasaan waxa iga fakan waayay adduunyada waxa iga fakan waayay dariiqa intaan maray kab meel taal waa iga fakan weeydo waxaan leeyahay daciskii yiile xabadiisi kala weeyaan leeyahay waxa iga fakan waayay qori meel yaalo oo waxaan leeyahay caawi ilmaha u shidid waxa iga fakan waayay calal meel yaalo oo aan iri ilmaha markii baabuur aan saarnay way iswasaqeynaa inaa ka tirtirtid weeye calal meel yaalo waa iga fakan waayay warqad meel taal waa iga fakan weeydo musqusha markay galaa uga tirtirtid baan isleeyahay wax kasta oo meel yaala iga fakan waay hadhow suuqa markaan aado markaan soo noqdo jawaan kale to waxaan sidaa qoryo kabo adduun oo jidka aan ka soo aruuriyay
marka waxa waaye waa dhibaato waaye wallaahi billah dhagaxyada xataa waxaan isleeyahay dhagaxyadan Ethiopia diamond baa yaalba dhagaxyo dhalaal iyo qurux badan bay leeyihiin dhagaxa xataa aruurinaya wax kasta iska daaya laa ilaaha illa marka ilaahay qaxootinimo ilaahu ha nabadin ilaahu intaas noogu ekee ilaahu wadamadayada noo soo celi ilaahay maxaa la yiraahaa bogooda Soomaali burcad isku mari ما قرأتي وادعينا وادعينا مركز دمباتو إلهي سنة كيس إلهي يرب قحوتي النجاك حي إلهي ونجاك حي تان دباتي سنين إلهي هوسي سياديو برواقة هذا كون دباتي سنة الله كقادر إنه كوكو لجليجنا الحوجها قبضنا